السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتينبا meel kasta oo joogtaanba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono suugaanta Soomaalida. Barnaamijkan barta Facebook ayaan horey ugu shaaciyey inaan soo gudbin doono gabayo taariikhi ah horey loo tiriyey. Gabayadan waxaan ku xushay inaan ka dhadhamino af Soomaaligii iyo suugaantii. Xilligii hore iyo Soomaalidii hore iyadoo isu gabayda ayaynan haddana gabaygu wuxuu ahaan jiray fariinta iyo xigmadda la isugu baano ama fariimaha la isugu gudbiyo ama wax lagu kala sheegto ama wax la isugu sheego. Marka inta badan sida hadda xilligan xariga loo isticmaalo dhinaca qabyaaladda aad uguma badnayn, laakiin wuxuu ahaa hubka afka kooda ugu saamaynta badan ayuu ahaa. Marka gabaygan waxaa isweydaarsanaya laba abwaan. Waxaan barta Facebooka ka baafiyey abwaan la yidhaahdo Maxamed Cabdi Dhuule kuna magac dheer abwaan Lood, ninkaas oo u dhashay gobolka Togdheer ee Somaliland. Gabaygan waxaa tirinaya oo soo gudbinaya codkiisa kusoo gudbinaya abwaan Maqadin Sheekh Maxamed oo ku sugan magaalada Qabdidahare ee deegaanka Soomaalida ahna xarunta gobolka Qorraxay. Abwaanku wuxuu sheegayaa 1982 in gabayo uga yimaadeen dhinaca Imaaraadka Carabta sida isagaba uu sheegayo. Gabayadanna ay niman u keenay ay u sheegi doonaan 4 gabay oo u tiriyey abwaan Lood. 4ta gabay inuu xilliga kaga hadlayey 1980kii xaaladii waddanku markaa ku jiray kacaankii, isagoo si gaar ah deegaamada dadka ka soo jeeda ula hadlahaya. Marka abwaan Maqadin ayaa wuxuu tirinayaa gabaygii loo soo dhiibay oo xifdisan yahay ee abwaan Lood. Gabaygii uu kaga jawaabayna wuu raacinayaa. Gabayadana waa gabayo dhowra. Gabayga ugu horeeya ayaynu ku daafuraynaa idinlana wadaagi doonaa. Waxaan aad u jeclaystay inaan helo sawirka ama muuqaalka abwaan Lood, laakiin muddo 24 saac oo Facebook ka baafiyey weli maanan helin. sidaa daraaddeed ayaan insha allahu tacaala waxaan jeclahay markaa inaan halka idinku soo gudbiyo 4tan gabay iyo 4toodii jawaabood. Dhinaca kale abwaan Maqadin Sheekh Maxamed ayaan gabayo kale oo badan ayaa ka soo gudbin doonaa oo aan uga jeedno inaanu diiwaanka taariikhda gabayada ku darno ama dadka wax kaydaya ay ka faa'iidaystaan ama ay qoraan ama ay kaydayaan. Gabayadan iyo muuqaaladan iyo kuwa hore aan u baahinay iyo kuwan iyo kuwa soo socdaba waxaa duubay mudane Maxamed Xadiis Xaaji Aadan oo magaalada Birmingham ee dalka UK degan, oo dhowaan booqasho ku tagay deegaanka Soomaalida gobolka Qorraxay gaar ahaan magaalada Qabdidahare iyo nawaaxigeeda. Halkaana kula kulmay abwaan Maqadin Sheekh Maxamed isagoo marka taariikh badan iyo gabayo badan ka duubay ayuu gabaygani wuxuu noqday gabay runtii markaad dhegaysato aad ka heli doonto af Soomaali iyo suugaan. Haddaba waan idin kala dhexbaxayaa gabayada kalena si toosa ayaan u soo gudbin doonaa hadduu ilaha yidhaahdo. waad mahadsantihin. marka hadda sanadkii u dambeeyey ee dagaaladii u dambeeyey ee 81 ilaa 82 socday iyo gabaynkadu ku saabsanaa daandaansigana iyagaa lahaa xagga dagaalka iyo xagga afkaba. marka anigu berigaa waxaan joogay Kismaayo, waa ka babcanaa. marka Kismaayo waxaa noogu yimid nin baxawaadlo oo ina Cabdixirsi oo deeq la odhan jiray oo qadar degan kor loo yaro qaad. marka ninkaasu dad muu ahaayoo wuxuu watay gabayo isaaqu leeyahay oo ay tiriyeen oy dagaallada ku saabsan oy ku maaragtay ku libin sheeganayaan. marka wuxuu yidhi gabayadaasaan u soo fasax qaatay anigoon jawaabtooda helinna shaqadiiba ku noqon maayo. markaasaa aniga la ii yeedhay Kismaayaanu ku duubnay gabayadaas anigoo ka jawaabaya gabayadooda anigoo ka jawaabaya yaanu halkaa habeenkaa ku duubnay gabayadaas. wixii ogaadeenahay joogayna wuu ka soo qayb galay, xataa baylooda iyo korneylaa ku jiray dadka meesha soo galay. waa sanadkee baa tiri? waa 82 adoo Kismaayo jooga. markaa sax gabayadoodii baa marka uu ninkaasi cajalad ku watay. gabayadoodii baan dhegaystay si aan uga jawaabo
marka waa habeenka uu iigu badnaa gabay galo kafuul ah 4 gabay oo ay leeyihiin nimanka isaaq yaan isku goobtaan kaga jawaabay oo waliba kuwooda ka fara badan oo ka dhaadheer marka anigoo ninkaa inaan dudmada ka bixiyey iyo cadhada oo aan maaragtay aan celiye raba ina cabdisaal baad ku tiri markuu ku yidhi nimankaasaa gabiyey waxaan ku idhi mar haddaad wuxuu yidhi 5 nin oo ogaadeena baanu ku joognaa qadar 2 nin oo iidoor oo gabaydaana way nala joogaan nimankii gabayadoodii wax ka jawaaba waanu iska weynay 5-tannadaas sidaa darteed baan u soo birmaday oon u soo doontay jawaabtii waxaan doonayaa marka iyagoo sidii guba oo kale isugu jawaabaya inaan maaragtay helo haddaan helina shaqadiiba ku noqon maayo anaa markaa waxaan ku idhi adigoo ina cabdixirsi ah oo cadhooday oo niman iidoor oo meel shisheeya isla joogtaan ay ku gabayadoodii aad hayso oo ka jawaabi weyday cabdixirsiba kuma dhalin laga racbaaba tahay baaba ku idhi marka waxaan markaa gabayadoodii baan horta xafiday oon dhegaystay fahmadii hadda ma baanaan lihiba 4toodii gabay baan xafiday 4tii aan kaga jawaabi lahaabaa markaa ii fududaanaysa markaan kooda xafido waxaan markaa cajaladanu waa 60 xadhigeedu ma wada qaadayso 8 gabay waxaad soo qaadaan cajaladii 9-ka ahayd ee xadhigeedu 9-ka ahaa tii baa la soo qaaday marka gabay kooda hu dhacaba jawaabtiisii baan raacinaynaa marka gabayga u horeeya ninka bilaabay 3 gabay isku nin baa tiriyey 1 gabayna nin baa tiriyey marka wuxuu yidhi gabayga u horeeya magaciisa waxaa la yidhaahdaa buu yidhi leyla goboley leyladii buu ku matelay carruurtu ciyaari jirtay leyla goboley baa la yidhaahdaa buu yidhi wuxuu yidhi waayahanba leyliga isaaq way laacdamayeene way laamadoodeen markay laaranka ciyaan la ka badan xumaantay liqeen mana la daadiyoonne markay dunidu laaciya ahayd loofarka iyo boobka ee geela laagaha fadhiya la isku maagayey khalqigiinna laaluushi jiray wuuna liidsaday kumay ladin lacaab kuma galaan lahanka reer sheekhi kumay ladin haddaad loolantaan licibku waa kiye kumay ladin hubkii liilan bay idin ladaabsiine kumay ladin libaaxyaa fadhiya labidan waaweyn liishaanka nimankii yaqiin laala nabadee lawiyaha intay ula dhigeen laanya doqontii maantoo lekeeciga noqday oo lumay ogaadeen weligiiba waa leexan jiray badow ladnaadaaye laqan bay ismoodeen markay 2 jir gaadheen waabeeyadii ay liseen cidima leegsiine lugmaroodii kuma joogsanine laag yar baa helay jeeroo lagaa iyo lagaa liisku ka hagaago lufandoonin maayo esiyaad wuu u laac dhigay yidhi weligiiba laan loobar iyo loodhi hawgada inkastay warmaha looshadaan waa lo'dii hore iminkay maryaha luuqan iyo luunka dhigayaane iminkay habeen lidaqa iyo ligiski miirteene iminkay ku leeleelayaan laanmadooyadee jeerooy baftadu liinbaxdo oo loo yarku iftiimo jeeroo ninkii loo dhahaa lumiye maalkiisa jeeroo waxaan lahanayaa igu lamaanaado jeeroo lagaa iyo lagaa liisku ka hagaago miyaa gabaygu ii liilayaa soo laqbixi maayo miyaa laamadood igu jiraa soo legdami maayo miyaan carrada laafiyoon karaa soo liqliqan maayo leyla goboley buuhi nin garaadliya geel kugiisu markaa gabaygiisu xagga horena waa ka faanayaa xagga dambena wuu ka calaacalayaa waa ninkaa liiqliiqanaya leyladii buu ku magacaabay ninkana markaad u jawaabayso waxaa fiican inaadan qaafiyadda ka gudbin uu isagu bilaabay xarafkii uu ka gabayay waa inaad aadna maaragtay uga jawaabto haddaad nin gabay yaqaan tahay markaa gabayga jawaabtiisu waxay noqotay laqanyo iidoor bay noqotay marka waxaan idhi luuqda gabay baryahan layga waa inaan ku leexdaaye waataan lugtoolaha ka dhigay laydhu sida tahay 2 sano iyo dheeraadba waan laalay maansadeen caawii laqmadu ii baxdoo laydhku ii horeed wakhtigaan la daabani jiriye laysankii helay iidoor liciifow haddaan licib idiin sheego ogaadeenku waa laangobow ma aha laakiine waa niman wixii laac yidhaa ay laqmanayaane waa leeb mariidliya sun aan daawo loo heline
wixii kibir la leegleegsadee joogso laga waado ee laynkanaga soo galaa dib uma laabtaan libaaxuba hadduu laagihii iyo looli kora joogo isagoo dhirtuuladi jiriya xamurkii laamaadha haddii wiillacaab ula tagoo weliba laaqlaaqo lixlagaabkii uu siday hadduu laabta kaga shiisho haddii ay lafaha gees martoy labaca jiidhayso intuu soo laluu gooradaa kaga lagiigmaaye durbe 2 daqiiqoo galaalayska aakharee idinkuna lacayn baa tihiin kaa islaayacay war markay dunidu laaciya ahayd loofarkiiyo boobka ee geela luuqyada fadhiya la isku loo hayay inaan luqunta kaa toogan jiray waad ilaab garane gumaysiga intaan laba hayee nacabka laynayay ee gumaca kaa leexiyaad layli noqoteene oo laydh idiin furantay ood yara lulmooteene ood guniladnaan ma xajiseen nabadii laasheene waxaad lur u badheedheen markaad socoto layseen ilan 9 nin oo gaadhi saaran oo safarahay ahaa waxay colaaddu ka bilaabeen ay laayeen marka waa dhib problem taas haa waxaad lur u badheedheen markaad socoto layseen raggii cadowga leeleeli jiray leexa soo kiciye mar hadday warmaha loolshadaan laaban mahayaane intaan kumankii laagaha fadhiya luuqda weli gaadhin koox cali shucaac laga tambaray laabta kuu gale aakay liqdoo boobihii idin ladaabsiiye liishaan haddaad leedihiin maydan libidheene wataad ladhkaa iyo ladhkaa dib isu laabteen eed kabaha laalaadsateen dabanlaxooxee hadaase licibku kula weyn yahay layla may dhalan anigu labeen ila yihiiyo weliba laadhuuce laqanyada ku haysiya wadnaha lulugga kaa saaran lurka weli idiin soo socdee laaban baa badane lalabaha colaadeedba waa aniga loo geeye laki iyo nasiib baan u helay loolan diriireed inkastoo libdhadu soo baxdo ay 2 saac gaadho inkastoo ninkii loo dhahaa lumiye maalkiisa waxaad lahani eed sheegi waa lumitinkiinnii lalabaha colaadeedba waa aniga loo geye laki iyo nasiib baan u helay loolan diriireede marnaba libin inaad naga heshaan deerka ha u lulina baan waa laqayo gabaygaas marna inaad libin naga heshaan deerka ha u lulina beerka